loo isticmaalay in looga sheekeeyo xanuunkii 16 jir ku dhacay ayaa 60 jir haddana la hor keenay xanuun la yaab leh ahayd oo dhagaha bini aadanka dhibay ahaayeen markuu uga sheekeeyay qaabka uu kufsigu u dhacay iyadoo cadaalad raadey ummaddu ma wada ogeyn waa la ikusada lay taagnay laakiin qaabka uu dhacay iyo xanuunka ummaddu horteeda lagama sheegin laakiin maalinkii markii loo sheegay cirkay fiirday ما فهمتين كفتي maamada markii arinku saas yiri oo maxkamadda ayaan dhan fiis looga dhigay oo mataqaana lagu soo jeediyay ummadda caalamka waxa soo hadla raggii iyo sawiradoodii iyo la isticmaalay rag kamida iyo dad ay soo dirsadeen oo dhahayaan maamada magdhoweediyaan bixinaynaa $50,000 loo soo bandhigay maxkamadda live-keeda iyadoo fadhida $50,000 ku siinaynaa waxaan rabnaa in ay ku magdhabaan nimankii maamadu waxay tiri inaan cadaalad la sii aan raba $50,000 marbo xaaladaad waxaan ku dhameynaa WhatsApp group halkaas ayaan kuugu keenaa nimankii iyo waxaad ku heshiilahaydeen ayaan isugu keenaa halin maamada sidaas loo tuuray $50,000 ee maamada loo ballan qaaday bangi Soomaaliya ku shubtay asagoo nimankii kula heshiiyay inuu kiiskan hoos u dhigaa uu daminayo maamadaana mar dambe media ka hadlayna $50,000 asiga qaatay bangi Soomaaliya $50,000 loogu shubay maama Saafi ay tiraahday $50,000 ma qaadanayo cadaaladan sii aadaya $50,000 bangi ku shubtay maamadina waxaa la keenay markii qof soo qabtaba in la tuuro qolkii lagu arkay in laga tuuro in meeshii lagu arka laga tuuro in meel kasta laga tuuro maamadii oo damage cusub soo gaaray oo walaalkeed maxkamadaas markii laga fadeexeynay xilliga sidii loogu galmoodo laga sheekeynay walaalkeed xataa feeraha iyo kaliyaha feerka la dhacay madaxa uga soo carartay ka sheekeynta iyadoo cadaalad raadinaysa kufsigeedii uga soo carartay xamar iyo dadkeeda dhexdiisa uga soo carartay dhibaato hor Allah ay maxkamadii feeg ahayd ka heshay fadeexa hor Allah ay ka heshay lacagtii loo ballan qaaday liidiyadeedan bixinaynaa ee $50,000 markay tiri ma rabo 3 nin ay ahaayeen in waxay ahayd ninkiiba xataa $50 lagu qorsama nin walba diya bixiyo markay tiri cadaaladan hore u sii aadaya wadiis abkan kuugu keenaa nimankii adiga iyo dadkii wakiilka ka ahay dagaal yiri $50,000 asaga ku shubtay ayadana mar dambe maqlimaysiin oo yiri miidiyahan kuftinta kama maqlaysiin aniga daminaay sidii $50,000 ku qaatay sidii maama Saafi markay soo kortaba loo tuuray sidii dadka bataqaana hoos loo hadlay amniga ka haaya ay ugu soo saareen in islaantaas adii kale amniga ma sii hayn doontid sidii duqdi meel kasta looga abiyusay sidii ana loo tuuray cadaalad darradii ka soo dal ay ka gubanaysay cadaaladii raadinaysay 40 sano mid ka xun baa ka raacday maxkamadda feega iyo fasahaada mid ka liidata ka xilligaas maba la iibsano wayba la dhuumato waxeedii ayadii oo 60 jiraha kufsigeedii la iibsaday xalqooyinku waa badan yihiin maalin kastana midaan ka hadli karaa marka waxaan inii sheegayaa meeshaas maama Saafi looga tagay waa la tuuray waa la ciilay waa la dhibaateeyay lacagtii loo ballan qaaday ay iyagu diiday tiri cadaaladan hore ugu sii soconaya waa la qaatay dadkii waxa lagu heshiiyay ma hadli doonto waa la damiyay xaqeedii halkaas uu ka baxa bangiga xamara lagu shubtay lacagteedii meeshan aqdara ka socota dadka la tuugsada oo la soo saaray dadka lacagaha looga qaado kaliya lacagooda lama dhaco dad waxaa jiro badan oo soo wadno inta la waco lacag iska dhiiba inta la fadeexaylaha lacagtan akoon ku shubaan maama Saafina waa weydiin kartaan $50,000 inta nimanka la heshiina leerwadiis afka lagu keena in loogu keeni waayay in $50,000 ay ayadu diiday la qaatay in ayada miidiyaha lagu abuyusay in afka laga qabto in meeshay kortaba la tuuray meeshaas waxa meesha ka jira waxyaabo badan oo ka daran aan soo wadnaa halaqooyin badan ah maxkamadan feega iyo fasahaada qof kasta Soomaaliyeed inaad taageero ku darsan inaad mataqaana aad waxba ku darsan qof halkaas la soo saaro hadaad lacag siida inaysan gaaraynin inaad gacmihiina ka laabataan inaadan mataqaana meeshaas wax ajira ka helaynin inaad dhageysigeeda khayr ka helaynin halkaas ayaan inuu tilmaamayaa way soo socotaa maalinba in baa imaanaysa falanqada hadda waxa waaye waa kii labaad waa kii afraad waxaan hadda xalaqadii afraadan sii daayay oo maama bahalkii maama Saafi ah
أنا أرنكيga intaasoo ku agtahay halaqadaas waxa meesha yaala marka waxay tahay waxaan leeyahay marka umada hawiyaan dib ku soo noqonaya ee daaroodna la dhex dabaalanayo adiguna iridan ha soo galin lagu leeyahay ku dhex yaa daaroodku wuxuu ku arkay ka soo raadis ku dhex yaa cade wuxuu asagu ku arkay qolalkiidana keensada koodana taga wuxuu asagu ku arkay ka raadiya ka soo raadsatay qolalkiina hawiyo markuu yimaadana bal fiiriyo inuu nabad in kula joogo oo qolka inii soo saaro dhaqaaleyn kugu sameeyay inuu isku kiindiro jifadu u imaado buu ka dhex qad qolow qabsanayo waa qolo kale ku diray bas maalmahan cayr iyo abgaale ka shidanta because ubax guray Roberta Calaso iyo Xasan Jaaswa mudaharaad ka socda iyo qol Saleebaan waxa way garyaqaan afartaas ciidow hadda u koraa hawiyaha afartaas ciidow u koraa waa Saleebaan وعير وأبقال وسليبان إيه عير إيه أبقال وكرة هذا نحرسنا وقمتجو قالوا البقولوا جفدي هذا سوق الريحة نين نادر كي سوق الريحة يا بالخير هاي كانوا قالوا كايني شدو وواحد كم ذا دالتان وول بلعكوا أبورتا دينكو إسجعل جفدوا أوي ما هذا دينكو إسجعل واحد بالهايني سما يا خير daaroodka markuu u tagaba isku madira waa ku faraxsiya challenge lacageeda u sameeyna qolka lacag u sameeynaya lacag u sameeynaya markuu daaroodka la joogo jufo isugu madira waa dhex qosla wallahi billahi talla wuxuu ka nabad jecel yahay wuxuu ka farxad badan yahay markuu qol daarood saaraya micida maqana darkayso u qosla yaa lagu riixi karaa daarooda u wactay iyo daarooda u yeeratay yaa lagu riixi karaa war daaroodka yaan la iiga imaanin waaye aniga yaan la iigu imaanin waaye meeshaan farxada taale yaan la iigu imaanin oo bataagan yahay yaan la iigu imaanin oo taagan yahay hadde qolalka daarood isku madiro wiilashii oo soo kiciyo oo soo bixiyo markay fahmaan dhahan naga tag camariyahu kuwa cusub daarooda huraadsaa oo soo saara hadana inta ayaan inuu ka aqoslo waay waa inuu dhiig daarood ag fadhiya raaxadiisaaba ku jirta iyo farxadiisa hawiyaha markuu u tagana qol abgaal haduu tago waa xanaaqsan yahay ninka abgaal qol kale oo yuus gareynaya mid kale abgaal oo daaqada u saaran u yuus gareynaya iyo caburiyo leeyahay ma fahanti qol cayro tagaya ii qayla dhaamiyo leeyahay microphone-ka waaw dumar badan oo amaanayo sheegay hal qof oo magaciisa ka aqaan ma lahayn heblaaya ii joogta heblaaya kale ii joogta boqol naagood booskayga iyo codkarnimadayda haysata oo ma taqaana hadli kara oo ma taqaana wax walba micnay kara xumaana diidi karta wanaagna qofku garab istaagi karta ee media ma keeli karta oo habar gidira ma keeli kartaa dhowr sanguray yaa la yiraahdaa naagtaane dhowr sanguray yaa la yiraahdaa maxaad boqolka naagood u magacaawday miisaanka culayska ubax leedahay naag leh ma ku jirtaa dhowr sanguray miisaankeedii naag leh ma ka soo helay habar gidir wadiga heblaaya ii joogta heblaaya kala ii joogta ushii nabi Suleymaan meesha taalo abaarku cunay markaas waxay moodaan inuu nool yahay wali jinkii mooday inuu nabi Suleymaan wali nool yahay 50 sano ka hor ushii hor fadhiya abaarku cunay wasfashilanta isaga tag media maxkamadaas cidii wax ku dirta sahaada ah cidii wax siida ogow in ma taqaanaa waxaad dirta iisan gaarin waxa meeshaas waxaad ku dirtana aad khayr ka helin aqri aduun waxmaan ma ahane inaadan khayr ka helaynin maanta waqtigeyga aad u yar yahay waa Friday waa jimcaysanayna xeeto iskoolaadkeen waa half time waqti badan in lama qaadan karo waxaan leeyahay waa see you again another time waa inii xiiso doonaa marka waa in si salaamaya arrinka daaroodna dib u fiiriya dadka wuxuu inii sheegay kaliya arkinina asagana arkade
fiirsha asaga dadka ha arkinin asagana fiiriya waa in si salaamaya dhamaantiin qolka soo falow gareeya waa xilliga maanta xilligiisa kale xalaqadii shanaad oo inii soo gudbi karo xalaqada shanaad ee bariyahana waali ah qolka wada falow gareeya taageerada si xaqa qolkaas waxba ha ku dirinina waxba ha ku taageerinina meeshaas fasahaada yaala been abuura yaala qabiil isku dirayaal hawiye daarood isku dirayaal hawiyaha dhexdiisa isku dirayaal ayr dhexdiisa isku dirayaal abgaal dhexdiisa isku dirayaal murasadaha dhexdiisa isku dirayaal hawiye oo dhan isku dirayaal حقاً وهذلنا وركي جنتاس هو جبينا يا عاو ما أنت حتى مسوي كربل وهرديسا وإني سوى السلامة يا سوى ذا فلوجريه بريح على قدر صوص عتاك وين كيسان أنا وقعنت كوها يوها إيه جولستي كيس كاس ومحكمة دمريج جولستي أيام بري إني سودين دونا وأنا كيس وخصل كبدن كيس كاس وإني جعل هذا ما أنت سالوفك يسوى الدريسين يجي عشين إن لسي جوجا إيه لكن تايم إني ما هاي أو سوري